وقولكي وري هرت حبسي اللي يجيو وقولكي أن كشري أن وحكشري مركي وري حبسي اللي كاني هي مركي قدام بس اللي يسوي سيديني بقى لابد قرب قب حين قول كانوا عن سامري مركي قول كان كريجي ما سامرينا دفر بدل ما سامري بالقديس إنه إيجي ناداوله وحسامري قول كان دفر بدل مقاعد حاجة بقرب ما تقدر نيسا أحمد صافي قرات أحمد نور يوسف حاج متان حسن أحمد جيدي هلقن حسن خضير عبد الرحمن سراج آذن قولي العسوي تاريخ هلقا كبرنا وتاريخ دي وحاوي إثيوبيا حلاك هسا اسماعيل بورقاوة بدل حيس نقاسوا عبد بدء شميل محمد قاس عبد الرحمن محمد عرب وعبد الوهاب شار عبد الرحمن بدل حيس بيسرون الشراء عبد القادر ظاهر سلوك عبد أحمد شامع إن لا شراء ضفر بدل ما شراء وهذا الصامري ومقاعدين إن سوكو بكريم سبتي مدارة تطبع مر إن بدو كحنا ضيوف ربنا قرجنا الأركيسار وقولكي لا يدوب باللابي ويمر كان سوق عليه أكلوا هلها بروا سبت الباب كان الأركيسار وانا ولود الحمدي اكو ما دام لي دبدا اصابتي الباب كان مالتي غوريسان امد انت الله كان لحمد با لا يغو قبتay afarta koonaha albaabka afartiisa koone laxamad baa lagu dhajiisay aan uga neefsan halka yar nin la yiraahdo yarkii alxan ka shaqeeyay maxaa magaciisa bilili baa meesha yar ee kore ii dalooliyay bal in naqaskiga soo gal marka hore xataa meesha yar ee kore daloolkaasi wuu xidhnaa halkan waxaad maqashay suuliyada dadka lagu xidho waa suuliyadan weey suuliyadan arkays waa afarta soo jeedka ah iyo afarta sii jeedka weey saas ay iga soo horjeedaan dadka halkan lagu ciqaabi jiray xiliyadii intii aan aanu maqnayn zuway ku maqnaayeen kalaba suuligan way meeshii xufaada lixda qof halkan qolay intaan la eg ayaa lix qof la isugu galin jiray qolkaas aad arkaysaan inta caagaday waxa laga soo saaray iminka suuliyay noqdeen bariga laakiin dadka waa lagu ciqaabi jiray lix qof marmarka qaarkii 12 qof halkan lagu xidhi jiray marka waxa dhacaysa marmar in afarta suuli ah inta la buuxiyo sagaalka suuliba la buuxiyo ayaa min loo ogolaanay dadka in ay saxara ahaan u isticmaalaan ka la ogolaaday marka qisooyinka ugu naxdinta badan la waxa kamid ah afartan soo jeed iyo afarta sii jeed oo dadka buuxaan oo ay ku jiraan ilaa iyo afartameeyo qof ayaa ka dhaxe ayaa waxa la waro suuliga gal saad u gashay istiraad kaadu u fariiso ayaa ka koona dadka ku jira oo quraan wada akhriya oo subhanallah haya kaadiba kaama imanaysa naxdinta marka halkan waxa weey waa suuliyadii haddaan xagga u sii socono halkan waxa ay xiriidhigti wal oranay meeshan waa xiriidhigti waa meesha dadka lagu ciqaabiyo weey godadkii waa halkaas shisheey maanta waxa weey maxaabiista dhamaan aan ku soo wada booqanay chief iyo joog meesha la yiraahdo halkan halka qofka marka lagu dilo meelaan ubaxyada ka baxaya imika halkan lagu laayo dadka waxa la qaadi jiray qolalkana la gelin jiray chief iyo joog la yiraahdo iyo meelaha dadka lagu xabaal oloolinayay waa halkan inta lagu xabaal oloolinayay dadka oo ku imanaya halka lagu daxwaaleeyo chief iyo joog waa kan dadka inta la qaawiyo iyagoo qaawan ayaa meesha la gelinay halkaas la gelinay 12 qof ama ilaa 10 qof halka la isugu ururinay marka halka la isugu ururiyo iyagoo ka buuxa oon hadli karin wax magacyada ku qoran baad arkaysaa bicid waxaan idin tusi doonaa tusaalan خضير ماشي وكشرة ولا يالو بالأيجا إمك هو مسؤول صار خضير وزير كا يهوجانك وكي هراء اللي بتقولي هذا مدن الشميل ماشي وكشرة بالأيجا أنت هالأكت هاي هل كدتك اللي عقابي حيابها عاد كم تقنا نحن تقول إمك من قصة حسوس تأثيري قبل سنين ويجي وقسم السوحوية دت كيسان وقلي دت كنا لا الشيء ميال أوركرا وكو ولا لا حبشي ذا كل نحب بلاي دت وحيابها قرر وعبد جمديد وي وحاجر تاع مالها غير كود هاي عندك كود مالها نحريس مالها نحرين تلا عندي شيء وحويه مال سوليين أنجليي وحكو أرك قرال ماشي كو قرال كانوا حليه هاي أنت هسوا مع الموت بنكوتشراية وحليه هاي بالدقيقة وحليه هاي ضيح بكو قري وحاول نمعان عرب قبل الدار امتحانك
waa lagu sabraa sadkanagu waa dooran 9 bari qorax habeenkiina waa lay qoyaa kulba يرسو كل باب دقيقة يا الله يشبع لكن الحمد لله ما قعسوا فنح وعبد الكريم عويل وي ما قعس عمر محمد فارح قال إلهي قرقان إلهي كسك كسامر انت حاجة لصابر والله ما هلك رو ما هلك ردتك ماشان تبقى كسامري قف بن آدم وشرح كلام مجرو حاوي حصوصا قارا إيتاي ماشا ولا ريالو حاوي دبكة دادك الصامعي المقعة إيك محاكو قرانكا وحاوي قبل قرحين محمد وانا لقوي وانا لا حكومة وانا ليرا 4 سنة لكن إلهي باجرا إلهي ما أرانين وحان الشيء يعني نمعان عبد الرحمن وحان سوليون كجرا 7 maalmood سوليدا dadku saa lagu galayay waa waxan weey taariikh waa mahdo maantana waxa ilaahay alxamdulillah in dhagax buur janno marka qofku dhibka ka bato إبراهيم عيديد مركو دادكو ديبكو كبطو داد فرا بدن أينان قرانيني إبراهيم عيديد عمي عبد الله مركو دادكو ديبكو كبطو وحا إنعين بديين وحا هلان طقح وحا هلان ورنان إنا إسكاقا قران عبد الحكيم مركو داد فرا بدن وحا جيرا مقاعيدو دا إنان سو كوبي كرين وهالكم كردينتي لكن وحا كليو كاريهين تاريخها أي ماشي كو قران سوليو أي كاقا تاقين بير عانو أحد ودادك الشني لوي دادك هالكان أحد دادك الشني للاقا سحري وي 3 4 مالول بوترسان يسوغا ماشا كوشرا أيو مالول بساو قري هالكن با كوشرا هالكان إنكس مع المرقابي إيشيغي لبدي وداد قولك يكو كل مين وي لبدي وداد الشيخ إبراهيم اللي يراهدو هادو وين الرحم وينه يوم يديرو وداد هو اللي يراهدو نينك اللي يراهدو عبد الفتاح سموي هنا شيخ سموي oo yar reer magbeeda waagi la yiri madaxweynaha fasheen culimada meesha ku jirto dhan waxa uu suuliyada lagu guray waxa kale oo dhacday xilligaas kitaabada xataa xusnul muslim in la akhristo meesha laga diiday zaashid hadda daan tagno gulida waxaan ku tusaynaa kitaabadii oo dhan oo kitaabka quraanka xataa isku diiday waxa la akhristo 2008 bishii 8 taariikhda Itoobiya waxa ay budku ugu badnaa xilligu halkan ka dhacay waa xilligii lagu eedeeyay dhalinyaradii ururka ahayd oo na dhif inay waxa weeye kacdoon sameeyeen waa xilligii inta waxa weeye guryaha lagu xiray cuntada loo diiday kadibna kacdoon bay sameeyeen leeyahay waa xilligii ay codsadeen inay waxa weeye ehelkooda soo booqdo oo xuquuqaha ay leeyihiin ay halkan ka helaan maxaa loogu bedelay xukuumadii oo dhan baa timid in laba gole amriyay waxa ka dhacay halkan waxaan weligeedii Allaahid caalamka ka dhicin budkii ugu badnaa ay halkan ka dhaca taariikhda intay leeyahay iyo caalamka anigu intaan wax daawanaya ama wax maqlay burka ugu badnaa halkan ka dhaca halkan lagu wada jiray abay macmiil wax la yiraahdo jiray 4 jeer 5 jeer baa habeenkii la garaacayo waa meeshii waa waqtigii 7 jeer la jibiyay maxmed anni waa waqtigii macallin suuriye la jibiyay waa waqtigii cabdullaah xayraan uu jajabay qalin le xasan marmar xilliga rag ugu badnaa dibaatada gaarayso waa xilliga hadda halgan kaadida dhiiga uu kaadsho waa waagii gaadhay weeyay xilliga maxaa loo haysto waxa la yiri dastuurka u akhriya guryaha dastuurka baa dhalinyaradu akhrisay markay akhrisay kadib dhacdadana waxay ka bilaabatay wiil ayaa wuxuu yiri inta dhibki laga badiyay qori baan hayaa beekaayma qorigii waa la doonay waa la soo waayay kadib waxa la wixii jabhada ahaa qoryaha sheegay oo dhan hala soo saara hala garaaco
matraga la isugu geeyay waa la garaacay kadib baa qol saddex qol lagu xareeyay saddexda qol waxa lagu xareeyay 1000 raga kadibna waxa weeye cuntadii baa loo diiday saddex maalmood markay cunto la'aan ahayeen ayaguna ilbaabada xidhan waxay dhaheen dagaal baan diyaarnaa waan dhimanno xukuumadda markii dambe waxay tiri waa in la hadlaynaa ilka casan ninkii meeshan haystay reedoweenka ahaa markii kula hadlimayna ay dhaheen laba gol ay yimid waa la kaartay guriyihii baa laga furay abay macmiil baa u bilaabatay 4 bilood bay dadku cunto cuneen xilligaas dadka ilaa iminka dulmiga ku sii jira xabsiga ku sii xiran waxaa ka mid ah wiilkan waxaa la yiraahdaa Cabdiyare Labaala la yiraahdaa wiilkan waxa weey wiilashii iyagoo ciidanka ah markii ay diideen amarkii dadka lagu leynayay yiraahdeen amarka ma qaadanayno dadka iyaga lagu xasuuqayo dadka iyaga lagu dhibaateynayo ciidanka u soo jeediya cabashada Addis Ababa u baxsada laga soo qabtay ilaa iyo iminka wax uu ku xiran yahay oo sharciyo ma jirto dibka soo maray dadka soo maray dibka ugu badan dadku soo maray ka mid yahay ilaa maantadan waa maxbuus meeshuu ku sii jiraa madaxweynaha waxa uu weydiisanayna waxa weeye dadka sidan oo kale ah in dib loogu noqdo dadka sidan oo kale Cabdiyare maxaad tabanaysaa waxaan tabanayaa ilaa hadda anu Addis Ababa laga soo qabtay sababta laga soo qabtay waxaan dadkayga waxa mid diliyoon baa dadkayga ma dhibaataynayo dadkayga wada aragtaa si loo galay dadkii meelaha loogu dhibaato badnaa baan qamid ahaa ilaa hadda waxaan xukuumadda cusub ka codsanaynaa inay nidaam fiican oo sax ah dib noo eegto xaaladdanada eegto ilaa hay magacayga saxda arkiifyada ma yaalo Addis Ababa laakiin habeenka Addis Ababa laakiin gidibka liigi seerbi baa liigi gali meel fara badan baa liigi xaafadda markay timaadana balaayo ma qabo ma oranay sababta ma sheegi karo dhibaato ka badan waa isku goob joog baan ahayn aniga adu isku mid baan dadka meesha lagu dhibaateynayo baan marka waxaan codsanaynaa in si degdeg ah xaaladdanada loo eego meeshan wada aragtaan waa maalihii deegaanka ugu waxyeello badnay waxyaalihi lama guuraanka wax ka ilaa halkan meeshan hadda aan hor taaganahay nin baa intuu soo galay iyo si halka ku qaaday albaabka intuu gaaray halkan tadii nafta ka baxay minna wuu si dhex fadhiyay meesha waa meel noocaas heer waxay gaadhay ruuxa bini'aadamku jaran noqdo oo ninna lagu istaagayna wax xagga soo ku kaajiiray marka meesha waa meesha noocaas meesha in dadka dib loo eego xaaladeeda la dhowro meesha hadda xagga inaga halkan gulada waxa ka dambeysay meel halkan oo boosaneeraha ruuxa madaxa loo galiyo طبعا ما يقولوا ماشي حالته هذا ماشي هذا دلنيات سيده بورغادو كره سراجه aadan oo kale rag noocaas adigan rag meesha madax loo galin weey aan dhalinyarto ruuxan soo marin ma jiradii ruuxayga la oran karo ruuxan wax ma gaadin ma jiro meeshan waa meesha noocaas waa meeshii loo baneeyay ruuxa bilaadanka inta lagu hal qabtin xarka loo galiyay si passport iyo meelaha wax ku qorshatay waxyaalo noocaas loo wadi ruux bilaadan waxa artay loo dilay ama loo dhibaateenay ruux Allah hadash ama ruux Allah fadhiistay ama ruux aad xisitay hada dadkan badankooda kala barbar wuxuu wax ku gaadhay dadkiina ehelkiina dibadda jira ehelkiina meel ka soo hadlay ehelkiina waa basay ehelkiina waxyaalaha noocaas meesha marka waa meel lama ilaawaan waa meesha dadku aad ugu dhibaatay hadda meelahan oo kale waa meel meedka ristaasnaan jiray waxay ku bariyay waxa lagu bariyay tumi jiray meeshan meedka naga qaada dadka kale wada doontaan wax yeesho suuna noogu oran marka meeshan tan oo kale hadana iyadana waa jiifka joog kale qolkan waxa ku dambeeyay Cabdiduub iyo Cabdiraxmaan iyo Axmed Nuuriye iyo qolkii u dambeysay galayeen weeye waxa weeye adduunyadu barandooriyaba naasnaasi ilaahay xuskiisa badi xisaabi inta lagu la xisaabtamay يعني آخر قلت قدام بالساعة هذا نمشي خيالي كل ما أخذنا الإلهوان وحكوت شيء ماشي الإله عبد الرحمن عبد الرحمن قال فيك أذكرني سنة كمية دماغ رأسانتي كنت يلا بطمرة كنت يلا وقت أوارو شيء هذا محاكم عبد الله يسوع أحمد عبد الله يسوع أحمد ماشي سوى بومجة حرم كتير بقول مؤمن هبين يمال ببيع المشي بتري قال له تري تري وحاكم تري dadka meesha ka shaqeeya qayb ka mid ah waxyeeladii diiday in ayagu ku dhibaatoobeen sida Moolgacan Bashir Gacan oo kale ninka la yiraahdo Cabdi ninka la yiraahdo kale halkan dadkii lagu dhibaateeyay ka mid ah wax kale looma dilin waxa diin oo ka soo jeedaan gobolka dhagax buurbe inta dadka wax kale waxa loo dilay ninka dadka labadan gobolka dhagax buurbe ka soo jeedaan Cabdi kale soo waadiga saaran oo weyn oo wuxuu weyn baa la soo dilay feero way jabin malab uu jabin yahay garab uu jabin ilaa hadana wax dhaqtar ma helin waqtan joogna وايه
imika xaggaa waxaad ka garanaysaa xataa booliska laftiisa ee xabsiga joogay dhibku iyagu laftooda kuma yareen oo yacni iyagana dulmiga dadka lagu hayay iyagu laftooda ku hayay halkan waa qolkii labaad iyo saddexaad ee chief joog weeye chief joog bulgudihiisa aanu galno xaggaa xusuustaa waxaa weeye ande oo mayu laga soo xiray maxamed carab oo godiyay laga soo xiray inuu gooba arkiifyada ka shaqeynaya halkan uu ku jiray waxyaabo fara badan macalin shuuriye isaga macalin shuuriye soo sheekhdii ma ahayn macalin shuuriye oo ka macalin shuuriye 29 bisha 2009 isniin waxaasoo dhan uu ku jiray arbaco macalin shuuriye haddana waad aragtaan my first day bay ahayd isniin uu ku jiray talaado uu ku jiray arbaco uu ku jiray khamiis uu ku jiray jimca uu ku jiray axmed ganay baa jiray isaguna xasbullahi wa ni'mal wakiil marka dadku iyaga oo mataqaanaa dhibaatadaasi ay haysato haddana mar walbaba cibaadada iyo alla ka cabsiga meena iloobeen gargaarka kaliya haysteena waxaa ahayd inay yiraahdaan ilaahayow inay yiraahdaan way imika halkaasi cabdiyaro nuur iyo cabdiyaro labaale uu taagan yahay waad aragtaa sidee u yar tahay halka uu joogayo qofka saas unba u fariisan karaa waxaa weeye waa dhibaato weeye xabsiga inaad ku jirto adoo qaawan in adiga iyo saxaradaadii oo cunto la'aana meeshan gurigan waxaa hal sano bar ku jira cumar jiga ninkii la odhan jiray ama cumar maxamed faarax loo yaqaano waa wiil yar oo artistivisa dadkan wax qoro ka mid yahay hal sano iyo 2 bilood meeshan ku jiray waxaa ka bedelay ninkii la odhan jiray halgan ayaa ka bedelay labadan waxyaalihii ku dhacay waxaa ka mid ahaa xubnaha waa la kala toosin kari waa lagu hintay saa isu galeen yaa dib loo kala bixin kari waa bil yaa saliida cuntada intii laga soo qaado kushin yaa lagu duurtay waxaa kaloo dadka dhibka soo maray inuu good ku yaro la yiraahdo kala arkiifyadu jooga wuxuu yiri kiiska u bedel baa lagu yiri dadka hebel kiiska u bedel siraaja ka mid ah raggii kiiska u bedel lagu yiri al-shabaab ka dhig ninka khabiir la yiraahdo ka mid ah cumar kaasa ka mid ah waxa la yiri dhafooriye madaxweynaha diraysa baa lagu rag noocaas habi inuu kiiska u bedel soo qoosay ciidan ku xiran marka hore arkiifyadu gudaheeda loo xukum waa isla xabsiga gudihiisa maxkamadii loo wixii oo dhan waa isla meesha gudaheeda dadka noocaas meesha dhalinyarta aan magacaabo hadda waxay ku jireen min hal sano yaba ugu yaraan arrinta noocaas marka cunto la'aan dil habeenkii way u qoran tahay waxaa ninka ilka asal yiraahdo komishiga meesha gaan jira waqtiyada qaarkood wuxuu oran jiray markuu fiidkii tahay waxaan ku cashayna ma haynaa ma haysan buuran jiray markuu dadka garaacayo waxaa kaloo gurigan aad loogu garaacay ninkii la oran jiray muxuu ahaa ninkii la oran jiray macalin shuuri aad baa loogu dhibaataysan labada gacmood baa laga jibay meeshan waxaa soo dhacay dadka labada gacmood baa dhagax loo duldhigi waa laga jibay caawa laga maqnaan kaartoon iyo waxbaad isku duubay ama maraa lagu duubay ruux maxbuusa ku xiri berri oo kale waa lagu soo noqon bartii gacantii aad laga jibiyay ama hadana laga jibin waxaas dadku muuna xaafadna ma hayn waa dadka dhan baa la dhibaateeyay dadkii deegaanka ahaa ee muwaadiniinta ee deegaanka iska lahaa gaar ahaan ururka oo analif oo kale markaan soo qaadano waxaa hal habeen baa waxaa la jibiyay 320 nin baa dhibaato gaadhay oo isku mar wax la yeelay waxyaaladii meesha ka jirtay waxaa ka mid ah basbaas baa jiray fig baa jirtay oo dadku ku dhintaan waxaa jirtay gaaja jirtay waxaa jirtay hadda gidibka oo kale dad waxaa jira maxaabiisha intii la geeyay oo dhaxda dhagax lagaga xiray gidibka salkiisa uu lagu daayay oo markan ayagu cabsiyeysna laakiin xitaa dadkii dilay baan garanaa sida daktari baa ka mid ah ninka la yiraahdo kale ee koreen kan isagoo maxaabiista leen jiray telefoonna uu isticmaali jiray haweenka uu isticmaali jiray haddana annaga haynaba annaga goob joogayaasha ka mid ah waxaa ka mid ah hadda dadkii nagalatan qayb ka mid ah waxaa jira gacmaha laga jibiyay waakan gacanta laga jibiyay waa tan tan badnay waa dadkii ciidanka ay meesha ka shaqeynayeen marka waxaa ka mid ah waxyaalaha la ilaawaanka meesha ka mid gabar Soomaaliyeed oo ay soo leh maxay ugu direysaan gabar walaashiin aan saal ma ahayn waxba ma ahayn ayad aanan maalinsi waxyaalaha noocaas oo kale deegaanka inay ka dhici jiray wixii uu sii balaadhay ilaa haddana waxyaalihii noocaas hadda waxaa ka jirta cadaalad darradii waa ka jirta aad baad mahadsantiin waxaa weeye markaa waxaa weeye meesha wixii ka dhacay wax lagu soo koobi karaa ma aha axmed يلا هذا وش عنده واحد لو سوكو بكره هذا الماء ماشي waxa ka dhacay waxa weeye anu in badan in ka soonan joogin ay waxa weeye waxyaabaan anigu soo gaaray warama ma fiicandi waxyaabaan anigu soo gaaray waxa kamid ah war fiicanda sita sax alxamdulillah fiicandi ana xarunta caafimaadka midi warama fiicandi lanaawi burwaaqo waxyaabaan anigu soo gaaray waxa kamid ah hadaan la qaadin anu waxaan imid waxaan soo birahan arkaan ma biraha aad aragtaan 300 qof 350 qof malaha way ahayn biraha aad aragtaan waa lagu wada tukubayay waxa soo biraad aragtaan dadka ku tukubayay waxa uu imid intaasoo 100 qof
oo aan socon karin oo halkan gurguranaysa oo dhulkan socodka baranaysa sida caruur yaroo la leeyahay daadah halkan intaa haanta ilaa halkaa daadah oranaya oo halkaa baranaya markii la keenay aniga guriga aan markii hore intaan shaqada ku bilownay waan ku dambeeyay laakiin markii ugu horeysay la keenay waxa la igu dajiyay jingadan si fiican baa la dhaqmay aan horta wax dhib aan halka ka sheeganaya ma jirto jingadan deganaa marka aad baad maasantiin waa inoo waqti kale